بسم الله الرحمن الرحيم عاوي بشتهاي بشي كوي تبناد سيديدي 2024 waxaan cadeynayaa oo aan u sheegayaa bulshada Soomaaliland in aan ka baxay xusbiga talada haya ee dalka ee kulmiye kuna biiray isbahaysiga iyo isbedel doonka dalka ee waxa weeyaan wadaniga ka waxa runtii xusud mudan oo aan sababeynaya dadku ay isweydiinayaan maxamed madaalaha xusbiga kulmiye aha wuxuu uga baxay xusbiga runtii waxaan uga baxay aragti siyaasadeed aan qabay 2000 waxa weeyaan 2017 aan ku dhisay madaxweyne Muuse Biixi waxa weeyaan majarihii waxa weeyaan uu la halaabay waxa weeyaan uu la bayray taladii waxaan kula bayray waxa weeyaa cawaaqib iyo waxa weeye waxa ka dhalan karto mataqaana inuu dalka burburo oo baabo xusbi ahaan xusbiga kulmiye ka baxnay waxa weeyaan nidaamkiisa iyo maamulkiisa aad buu daciifay waxaanay noqotay in waxa weeyaan nidaamkii maamulkuwa waxa weeyaan uu baabao dabadeed markaa meel baabaaday guriyeed baabaa la yiriyo meel la sii joogo horta maaha waa sidii Maxamed Xaashi sheegay uu kaga tagay waxa weeyaan kulmiye nin dhiirana ma doono nin wax qabanaya ma doono kulmiye maanta jooga nin wax noqonayana ma doono kaysaga wuxuu qabtaa ugu liita kaysaga wuxuu taraa ugu liita kaysaga dhisaa ugu liita waa kulmiye maanta jooga waxa weeyaan Muuse uu musharax ka yahay madaxweynuhu runtii aanu kulmiye aanu ka soo jeeday beesha Reexa Ayuub waxaan shakhsiga imka ugu dambeeya title-ka haya ee meesha jooga way jiraan ashkhasiga hoose laakiin waa shakhsiga ugu dambeeya haya title-ka waxa weeyaan runtii aniga oo ka baxay xubinnimadii iyo iska casilay waxa weeyaan xogayihii gobolka iyo mataqaana aniga iska casilay xubinnimadii xilkeen oo xusbiga kulmiye waxa jirta anigu musharax baan ahaa golo deegaan kulmiye reer ahaan buu waxa weeyaan madaxweynuhu noo cadaadiyay in badan ninkaan hawradaaganahay waxa weeyaan uu noo diiday inaan wax weey iska sharaxno anigu ii diiday maxamed xasan saciid buu diiday cadaani buu diiday waa loo yahay in ka soo baxeen waxa weeyaan ururada mucaaradka uu maxamed ka soo baxay qaarkoodna ku dhaceen runtii kulmiye aanu tac badan ma gashaday waxa weeyaan madaxweynaha anigu waxaan hanti hayay laba bilood baan hayay waxa weeyaan madaxweynaha labadii bilood baan ku dhisay 17kii shaqadaydii dahabshiil aan ka shaqeynay baan uga tagay madaxweynaha aniga oo markaa ku doortay madaxweynaha inuu ahaa madaxweyne mujaahida dalka u soo shaqeeyay halgama ah oo waxa weeyaan dhiig biyo ma aha markii halgan tahay de waxa weeyaan nidaamkan ku dooranay iyo waxa weey laakiin nidaamku wuxuu noqday nidaam fashilme buu noqday nidaamkan ku dooranay siyaasadeed midaan waxba ka qaban buu noqday halkii siiraayay mid waxa weey siiraayay kaga tagay buu noqday xaaladda waxa weeyaan dalku uu maanta maray weyn ognahay marka la leeyahay dawladdu saddex bay ku dhisan tahay waxa weeyaan ama nidaamkeedu yahay in la helo dhulkii iyo in la helo dadkii camiri lahaa iyo in la helo maamulkii markaa waxa weeyaan de shaqeyn lahaa waxa weeyaan maamuli lahaa umada shacabka Soomaaliland weyn ognahay dhul ballaaran bay haysanaa ma sha Allah shacabkeenu waa shacab xariira oo duna weeye dawladii laakiin waxa weeyaan kala dambeysay madaxweynayaashii kala dambeeyay meel fiican bay soo gaarsiiyeen laakiin maanta inay habowday ayaan boqolkiiba aan aaminsanahay waa sababaha ugu waaweyn ee aragtida isbedel doonku ay kow ka tahay inaan ku raaco waa kow waxa weeyaan xaaladda amniga arkana dalka aad bay u liidataa goboladii Soomaaliland way kala go'een dadkii Soomaaliland way isnaceen wax guri u tagay iyo meel u dhaafaysa ma jirto maanta waxaan marnaa in la yiraahdo beel hebelay istifaacday beel kale ku duushay beelahan isku duulayana waa bulshadii walaalahayd ha ahaatiin cadow waxa weey fara badan Soomaaliland way leedahay oo inagu soo duuli kara laakiin waxa weeyaan budhigeeda iyo waxa weeyaan nidaamkeeduba wuxuu ku dhisan yahay ama maamulku yahay waxa weeyaan waa in markaa madaxweynaha jooga iyo maamulkiisu ay ka shaqeeyaan taa amniga waan ku guuldareysanay boqol waxa weeyaan ta kale waxa weeyaan dhaqaalihii iyo waxa weey isdhexgalkii dalkuna aad buu baabay dhaqaalihii waa digada weyn ognahay sixir bararka weyn ognahay waxaan ognahay runtii dadkeenu inay wax la'aan iyo baahi hodheeladii inoo shaqeyn jiray waa wada kacay nidaamkii dawladeed ba waxa weeyaan mataqaana aan manfaceedii uu boqol yaraaday because of taashuurta umadan ay ka heshaa wax tarka iyo waxa weeyaan wax siinta cashuurta ka heshaa taasina waxa weeyaan meeshii way ka baxday marka waxa soo dhan adeegto nidaamkii dhaqaalaha adeegto de waxa weey macquul marnaba noqon mayso waxa weeyaan dalku inuu dhaqaalihiisu kobco ayay nagu talagalay ta kale waxa weeyaan
kulmiyo horta qof joogana ma doono ka tagayna ma tago waxaan aaminsanay isku filin laakiin isku filnaashadu waxa la helay 13 November ay la helay horta bilin iyagu isku filiyihiin waa sidii madaxweynuhu aaminsan yahay habardaag shalay ana ku dhisay ana maxamed cabdi yuusuf caalina isku reer xarafan isku reer geesan ana duntii reer geesanahay waxa weeye madaxweyne waxa boqol ah oo aaminsan tahay dadkii xariirta ahaa reer geesaha ama dadkii ilbaxa ahaa Soomaaliland beel kastaba ha ahaadeen inaad xaqirtay dadkii wax kula qaban lahaa inaad xaqirtay oo diiday marka waxa weeye anu waxa markii hore waan ogaa inaan ahayn dadkii Muuse uu magacaaban lahaa inaan ahayn been boqol aan ogaa because of waxa weeyaan dad aad u liita oo waxa weeye nidaamka dawladda ku fashilmay oo magacaaga gelay aad madaxweyne maalin walba dirsataa waxaan ku sheegay madaxweyne oo ku leeyahay shalay tolaana ku codiyay codideedii caqligayga iyo maskaxdayda iyo maalkayga ku siiyay nafteedana ku horay oo khatar badan aanu galay laakiin maanta ana ka codanayaan leeyahay waxaan waxa weeyaan shalay toodan la habradaga loo coday maanta waxaan leeyahay abtiga loo coday beesha reexajayo waa beel balaaran Soomaaliland degta qodobkan ku daray waxa beesha reexajayo waa beel balaaran Soomaaliland degta waxa alla waxaas kaga tirisay waxa alla waxaad u qabatay haba yaraata ama haba badnaatay ma jirto institutionada dawladda waan ka wada maran waxa weeyaan maamulkay waxa weeyaan masabkay waxaad ku sheegtay ama waxa weey magacaygii meelihii bahdilka tusaale ahaan PhD holderkeygii ama dadkii waxa weeyaan runtii aniga cumadada iyo qiimka noo ahay micnaha noo sameeyay waxaad ka dhigtay storekeeper baad ka dhigtay yacni niman ku ilaaliya kaalmo waa kow maamulka waxa weey Soomaaliland beela wada diga beelo Allah sharfo way wada sharfayihiin waxa weeyaan miyir sanaan mayno adnadiisa reentiisa mitiisa sagaashan waxa weeyaan beelaha Soomaaliland waa dad walaala waxa lagu dhaariyay oo lagu doortay inaad sinto oo sinaan iyo cadaalad ku sinto xaqiiqatan waayo waxa ay marxaata ama marka noqonaysaa de waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin rabitaankooda waxaan ogahay beesha anigu aan ka soo jeedo iyo beesha gabooye iyo tolcacra iyo beelo kale oo Soomaaliland ama samaran haaba cid doonaan baha haadeen in waxa weeye ay ka mid maamul ee waxa weeyaan maamulka uu soo magacaabay boqol waxa weeyaan jifo waxa aanu qaadana waa jifooyinka hoose wasiir ku xigeenadu ma dhaafno kitaabka meel kaga qorantay ma jirto sinaan iyo cadaalad waxa weeye 19 beesha reexajayo eega shirki walaalay qabtay eega ma taqaana madaxweyne isugu yeeray beesha Saaq eega shaqi nabadeyntii Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre Allah yarxamee dadkii ka shaqeeyay buu ahaa waxa weeyaan anaga Soomaaliland cid naga jecel ma jirto waanu dhimanaa daraad baanu dhimanay oo tii hore aanu dhimanay oo tamaanu dhimanay ilaa imkan difaacna cid naga leh iyo cid waxa weeyaan naga sheegayrta ma jirto laakiin waxa weeyaan 32 sano ee Soomaaliland dhisnay beesha reexajayo waxay tabanaysaa xaqiiqatan waxa loogu abaalguday halgankoogii iyo waxa weeyaan iyo waxqabad iyo waxa weeyaan rabitaanka Soomaaliland jiritaankooda dalkooda ku faanayaan waa wax aad u liita waxa lagu abaalguday wasiir ku xigeen ma dhaafaan waxa weeyaan Siiraya ilaahay cimriga caafimaadka u barakeeyo weyn isaga waxa weeyaan ducaynaya because of Siiraya waxa ninkii naga dhigay waxa weeyaan ma taqaana gudoomiyaha maxkamadda sare NC waa ruuxa ka saddexay Soomaaliland aad u maasinsiga bashaar jacala laakiin madaxweyne Muuse Biixi iyo waxa madaxweynayaashii kala horeeyay aad bay waxa weeyaan runtii ay waxa weeyaan hoos loo dhigay Muuse waxa weeyaan waa bunala digay totally marka uqaashiga dhaqankaygu yimaadaan hees walwaalad waxa laga u qaadaa una la qoslaawo idinku baanahay shalay waxaan ku dooranay isku deegaan baatin isku dad baatin waa xaqiiqatan waa run weey beesha awal isku deegaan baan isku dad baan anaga Muuse Biixi gardaadini anaga imika leh waa dadkayga weey beesha habar awal way sharfayiin beelaha Soomaaliland oo sharfayiin bay saqana wata wax way cid kala wax noqotay laakiin maanta reerama marayso maanta qadiyad bay marayso iyo qarannimo jiritaankeenni umadeed baa dhintay keeni dareed baa dhintay darra tolaan waxaan la madaxweyne kafta ka noof ana maxaafida imikana waxa ga xilmiba kaftikii Soomaaliland laba kafta mi kara way bar ka mid dalkayga ayaa maqanba anu aragti siyaasadeed baan qabaa nin siyaasi ahay runtii waxa weeyaan nin waayo badan soo joogay baan ahay waxa weeyaan inaan waxa weeyaan aan halkay tahay aan sheego waa muhiim maanta dalka waxa badbaado ah shacabka Soomaaliland fariin baan u diraya beeshada fariin baan u diraya dhammaan waxa weeyaan ummadda shacabka Soomaaliland meel kasta wax ku dhaqnaada fariin baan u diraya war waxaan leeyahay Muuse laga codayo oo ciraa loo codayo badbaadada ku jirta dad yahow deganaanshaha ku jirta waxa weeyaan wada noolaashihiina ku jira
qarannimadiiba madaxweyne musharax Cabdiraxmaan Ciro qarannimadiina xoojinaya waxtarkeeni bulshada xoojinaya isdhexgalkiiba xoojinaya war waxaan leeyahay war Ciro loo codayo oo Muuse laga codayo waxaan leeyahay madaxweyne dalka waad ka baxaysaa laakiin si fiican nooma bixi biidmilaahi kariim waxaan leeyahay niman badan aan saaxiibnay oo maanta amba wasiirada ku jira xubnaha kala xusbiga walaal gacmo furan baan isku soo dhaweynayna waanu ognahay waxaad meesha ku qabteen waan ognahay xaaladu say tahay waxba ha isteelina dadkiina dhinac ka raaca waxa weeyaan dadkiina dhinac ka raaco ku soo biiray isbedel doonka iyo waxa weeyaan halku dalku jaaysamayo waxaan leeyahay waan kaga baxayaa aniga xoogay xiriirkii xoogay golkii xiriirka degmooyinka war waxaan leeyahay maanta halkaas oo maraynaa inaynu gacmaha isqabsanay muhiim ah nabadda aynu ka shaqeyno intay doorashadii noo socoto doorasho aynu gelaynaa war waxaan leeyahay xuduuduhu weyno waxa weeyaan ciidanka aynu la shaqeyno oo ciidanka inaga leh Muuse Malay inaga leh war aynu la shaqeyno oo aynu ilaashano nabadeena aynu ilaashano inta aynu hadhay sidoo hadii la yiraahdo isbedelka Cabdiraxmaan baa bedeli doona waxaan markaa kaga baxayaan leeyahay wadankii bulshada kii dhisi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantinay aad iyo aad baa shacabka u salaamay sharafta leh guul baan rajeynaya wadani guul baan rajeynaya Spice-ga guul baan rajeynaya Ali Xasan guul baan rajeynaya Maxamed Xaashi waa rag halgamayaal waa rag la yaqaan waa rag weey aad weyn baan di salaamaya Soomaaliland isku duunaataan leeyahay war maanta maalin reereed ma aha ninna yaani doora Azerbaijan ninka dalka wadana waynu garanaynaa waa Cabdiraxmaan war aynu doorano madaxweyne soo aragnay maanta taariikhdu tahay bishii xaweeyaan 12aad 2024 anigoo magacaygu yahay Mustafa Xuseen Maxamed ahna gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolka Maroodi Jeex ahna xubin firfircoon oo ilaa iyo muddadii xaweeyaan 17 ka soo shaqeeyay heer degmo ilaa heer gobol marka waxa aan ku bilaabay hadalkayga horta baaqaygu wuxuu u jeedaa saddex qaybood mid waxa weeyaan waa sababaha asbaabaha iscasilaada keentay wata labaadna waxa weeyaan dhalinyarada waa qodobka saddexaad waxa weey halkaan u jihaysanahay iyo qaabkaan doonayna ka dhalinyar ahaan waxa weeyaan boosishkaan taagan ama xilkaan hayaa waxa uu matalaya waa dhalinyarada bulshada badankeeduna waxa lagu qiyaasaa 70% inay dhalinyaro tahay cid codeynaysa ay dhalinyaro tahay marka ay sidaa tahay in anigu ku joogo title-kii dhalinyarnimo waxa weeyaan wax qabadkeedii ama ujeedadeedii meesha ma yaala si waxa weeyaan wax qabadka buuga loogu talagalay 24 ilaa 29 ee 2024 ilaa 2029 ee qorshaha xisbiga uu leeyahay xagee kaga jiraan baaritaan badan iyo xoogaal badan iyo maamulkaygii intii aan xilka hayay aan sooreysanay isku dayay inaan wax bedelo waxa ay soo baxdayba inay dhalinyaradii ay joogaan halka ugu hooseysa even xitaa chapter iska daayay inay yihiin inta lagu codeeyo Britolna halka albaabada laga soo xidho waxaan markaa go'aansaday inta halka taagan tahay dhalinyarada ama magacooga aan ku duulayo inaanan anigu xilka u sii haynin sababtoo ah ciidan aan maanta metelaya hadii aanan wax u dhicinaynin sooban meesha u joogaa meeshii ma taalo waayo intaan anigu madaxaawiyo la kursi baan ku fadhiya waxa iga muhiimsan maanta ciidan ku tiirsan ama ciidan wax ku noqonaya waa dhalinyaradii farinta dhalinyarada aan leeyahay waxa weeyaan waa dhalinyaro wada ogtihiin in degmooyinkan Ibraahim Koodbul laftirkeeda in goobaha ciyaaraha halka ay mareen dhalinyaradii sportska ha ee halka ay ku dambeeyeen waxa weeyaan dadkeenii hal doorka u ahaa iyo ujeedadoodii in aan laga meel dhalin in xitaa garoomadoodii aan manaafacaad lagu bedelin waxa aan u soo koobaya ama aan leeyahay waxa weeyaan xisbigan isbedel doonka inaan u digarrabano sababtu tahay mustaqbal ahaan iyo waay aragnimo ahaan iyo marka aan tashi badan iyo xoogaal badan sameeyay inay waxa halka xisbiga kulmiya oo rajaxana meesha u taala dhalinyaradii in aanay jirin sababtuna ay tahay dhalinyarada haduu dhisayo garoonadoodii iyo goobahooda sportska maanta wuxuu ahaa kii taageeri lahaa ee kii baloodhay lahaa ma marka waxaan halka ugu dan leeyahay waa dhalinyaro maanta waxa weeyaan cududiina iyo waxa weeyaan fartiina inay noqoto isbedel doonku oo abxiyaad ka dhidideen ayna noqon waxa halkaas intaad baraha bulshada iyo garoon baan laga qaataan noqonne
inaan ficil la nimaadno oon isku duubin la nimaadno marka waxa weeye intaan cad qoorsi qaadan lahayn inaan dhacno ismuujino oo ciddii waxa weeyaan hankeena leh ee in la soo dhaweynaysa ee mabda'ina la ah inaan taageerno kaaniga Mustafa ahaan waxa aan u tanaasulay ama aan xisbigii xubinnimadeedii iyo gudoomiyanimadii aan u diiday ama ka diiday waxa weeyaan daryeel la'aanta dhalinyarada iyo wax qabad la'aanta maamul xumada iyo waxa weeyaan qaabka structure-kii ay u shaqeynaysi aanu meesha ka baxay oo halkii la qancin lahaa bulshadii ama dhalinyarada baahideeda laga hadli lahaa in waxa weeyaan ay noqoto mid dayacan isku tuurtuur ah marka meel dayacan aniguna ku dayacmaya wax meesha ii siyaalana meesha ma yaalo maadaama dhalinyarada mustaqbalka waxa weeyaan siyaasadda oon in badan xoogaalnimo sameeyay waxa ii soo baxday ama aan go'aansaday in waqti ugu habboon iyo waxa weeyaan ay tahay imika sababtoo ah isbedelku waxa uu ku jira maanta waa gacmihiin waan aragnay wixii uu inoo soo bandhigay in habeennimadii laamiyada iyo waxa weeyaan lagu ciyaara wax tarmayso bari ka maalina maxaa tahaa meeshii taala maxaa lagu qabtay imisa baahan imisa waxa weeyaan dhibaataysan oo sportisa ka sportisa ama ka dhalinyarahan waa culideena aan muujino farteenayaan sidoo markii hore sheegay aan eersanay farteen aan ku ceel baxno farintaan diraya waa taas sidaan markii hore u eersanay mar labaad inaan eersanayna halkii hadalka waan loo cadeeyay hadalkeeni iyo ujeedadii inaan inta ku soo koobo waayo cid aan mataliya aan iyaga ka hadlaya in ay yihiin dhalinyaradii maadaama ay meeshii maqaam ku lahayn anigana da meesha kursi xil maqaam noqon mayso qiimeynta aan jireen maamulka aan jireen hawiyaan ka xisbiga ahaan kulmiyana waxaan leeyahay muddada aan soo wada shaqeynay iyo waxa weeyaan waqtigeeda aan soo wada qaadanay waad ku mahadsantii balse maanta waxa weeyaan waxaan taaganahay maanta farteeda ku ciil bixi lahaa raxiim maanta ay tahay 8 November 2024 waaynu 2024 13 November aynu soo diyaarinayna doorashadii madaxtooyada waxaan halkan ku cadeynayaa inaan xisbigii kulmiye aan xubin iyo xilba ka hayay aan labadiiba baneeyay runtii sababahan u baneeyay aan uga tagay xisbiga waxa weeyaan tashigii iyo isku imaashihii aan 2017 ku dhisnay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan madaxweynuhu 7 sanadood xilka hayay ka xisbi ahaan aan u talayaarin doona nagula soo noqon 7 sanadood wixii dhacayna aynu ka wada warqabno dhamaanteen hadday noqoto xag amni oo aad ogtiin xaaladda amniga dalka halkii marayso beelihii Soomaaliland baa nafahoodii difaacanaya oo ciidamada sameystay u gaaro magacyadooda ugu gaara waynu ognahay oo maciishadii qaranku halkii marayso waynu ognahay xaaladdeeda waynu ka wada warqabnaa waxaan sidoo kale ognahay wax soo saarkii dalkeenu maanta halkii ugu liidatay inuu marayo sidoo kale waxaynu ognahay xaaladii dhalinyarada dalku maanta halkii marayaan oo reer iyo dhalinyaradii ay u kala fadhiyaan waxaan macno badan u sameynaynin oo aan danahooda ahayn dawladdii jahayn lahayd iyo dadkii jahayn lahaana aanay jirin runtii 7 sanadood wixii dhacay oo dhan qof reer Soomaaliland uu ka dheregsan yahay maanta waxaanu kala dooranaynaa waxa weeye waa nin cusub oo hogaamiye cusub ay leenahay ballinka aynu eegno aynu tijaabino maanta iyo 7 sano hore wixii dhacay inaynu dib ugu noqono oo aynu mar labaad farteen eedno halkan waxaan uga soo jeedinayaa dadka reer Soomaaliland dhamaantood inay isbedelka qayb ka noqdaan dadka reer Soomaaliland waxa ku wada socdaan waxa weeye inay dalkooda Jamhuuriyadda Soomaaliland madax banaanaado waxa ku wada socdaan in horumar la gaaro waxa ku wada socdaan in dhalinyaradeena wax la baro waxa ku wada socdaan in caafimaad ay helaan waxa ku wada socdaan in Soomaaliland sharaf lahaato taasina waxaan filayaa in ay 7 sanadood wax badan aanay ka suura gelin madaxweynuhu mahadsan wixii uu qabtay wax laga dafiri karo maaha oo wax taariikhda ugu qoran maanta waxaanu dooranaa Cabdiraxmaan isagana dalka halka ka sii wada doona oo meel wanaagsan gaarsiin doona insha Allah ugu dambeynna waxa halkaasi ka hadlay Xamse Khayre oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani kaasoo soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dhalinyarada ah ee ka soo digarogtay xisbiga talada dalka haya kulmiye farxad noo ah haddaan nahay xisbiga rajada shacabka ee wadani in ay nagu soo biireen oo ay nala qaateen aragtidii siyaasadeed ee aanu qabnay rag halbowle oo ahaa xisbiga talada haya ee kulmiye haliyaha
oo mid walba la garanaya kaalintuu ku jiray oo ah maxamed oo ah xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka, cabdikariim oo ah madaxa warbaahinta ee gobolka Maroodi Jeex, iyo Mustafa oo ahaa gudoomiye garabka dhalinyarada ee gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye. mid waliba hadduu ugu yaryahay 10 sano xisbiga kulmiye uu ku jiray maaha dad cusub runtii. annaga sharaf weyn bay noo tahay, hiil bay noo tahay, waxay hiil u tahay qarannimada iyo badbaadinta barnaamijka aanu xambaarsanayn. marka koowaad walaalayaal waxaan idinku soo dhaweynayaa xisbiga rajada shacabka ee wadani 5 cisho ka hor doorashadii inaad go'aan weyn oo taariikhi qaadateen. waxaan dhammaantiinba dhageystay asbaabaha isku casisheen oo ah kuwa xalaal ah, gaar ahaan Mustafa oo gudoomiyaha garabka dhalinyarada wuxuu hoosta ka xariiqay doorka xisbiga talada haya ee kulmiye uu dhalinyarada siiyay tusaale ahaan barnaamij siyaasadeedkooda oo kale in bog wax ka yar 2-3 line inuu horaan maadaama uu mas'uulkii dhalinyarada u qaabilsanaa ahaana ay taasi u cuntami weyday qadiyadii dhalinyarada u taagnaa uu ku matalayay. sidaa darteedna isku casilo wax ka sharaf badan ma jirto qofku haddii mansabkii uu hayay matalaadda ummadii uu matalayay haddii wixii uu la doonayo waa inuu iska casilo runtii sharaf bay tahay. halkaa waxaan ka leeyahay marka waxa kale uu sheegay Mustafa in garoomadii ay dhalinyaradu lahayd oo kale ee magaalada Hargeysa ku yaallay tusaale ahaan garoonka dhalinta oo kale in la iibsaday isaguna dhalinyaradu qaabilsanaa waxyaabihii hoosta ka xariiqay ee macnaha isku casilay. waxaan u sheegay Mustafa haddaad akhriday barnaamijka xisbiga wadani hal cutub oo gaar ah 6 cutub ee uu ka kooban yahay ayaan dhalinyarada iyo haweenka u siinay. taas waxaan u maleynayaa inay ka mid tahay waxyaabaha aad ku qanacday ku soo jiitay. dhalinyarada xisbiga wadani wuxuu arkaa fursad uma arko caqabad inay tahay la xalliyo, uma arko dib, wuxuu arkaa fursad mustaqbalka dalka inay yihiin in xoogooda iyo tamartooda iyo halabuurkooda laga faa'iideysto sida barnaamijkeega ku xiran. waa hal meeshaan kaga duwanahay xisbiga talada haya oo isagu u arka dhalinyarada dhibaato iyo mushkilad ay tahay la xalliyo. marka taa waan dareensanahay waana kugu bogaadinaya. cabdikariim laftiisu qodobo muhiim u xusay oo dhaqaalaha iyo amniga leh. maxamed isaguna wuxuu sheegay wax wada lahaanshihii dalka iyo ummadii reer Soomaaliland cadaaladii ay u baahnayd inay meesha ka baxday soo hoosta ka xariiqay beesha uu soo ka soo jeedo. intuba waa run. waxaan idinku soo dhaweynayaa xisbi u taagan cadaalad, xisbi u taagan walaaltinimo, xisbi u taagan waxqabad, xisbi u taagan wadajir iyo musharax u guntaday inuu ummadda reer Soomaaliland ee la kala firdhiyay ee la kala irdheeyay inuu isu keeno oo mideeyo. inaad dadaalka meel qayb ka noqotaan oo aad go'aansataan caawa inaad nala dhistaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Maxamed oo Cali Cabdi iyo xisbiga wadani. aad iyo aad baanu idinku farxnay, waanu idinku diirsanay. waxaan walaalayaal idinku soo dhaweynayaa hadalka badin maaye xisbi lagu soo kala horeeyay laakiin aan la kala lahayn, xisbi dadka ku jira ay walaalayihiin, xisbi u guntan inuu dadkii reer Soomaaliland ee 2017 dhinaca ka soo wada jeeday baadi doono dib isugu soo celiyo. marka aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa, waanu idinku faraxsanahay. waxaan rajaynayaa insha Allah 5 cisho kadib guusha dhalan doonta inaynu qayb ka wada noqono. waana mahadsantiin dhammaantiin.